بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها خير كي وناق بدواني السلامي جزاكم الله الخير ما شاء الله. عاد باني قم هاد عينينا كحرنا شا كحرنتين channel كيغا شيخ ليبان علي aad baad u mahadsantiin ilaahani barakeeyo aad baan niga mahadcelinayaa mar koowaad iyo mar labaad jazaakum allahu alkhayr saad nooga barateenba walaalayaal qisooyinka diiniga ah iyo waanada iyo tusaalaha lehba waxaan rabaa qiso cajiib badan aan ila wadaago oo qisooyinkii hore ka cajiibsan. qisadan waxay ku saabsantaha walaalayaal in liska dhaxlo bakhiilnimada, yacni qofka heer inuu gaaro bakhiilnimadiisa in ilmihiisa xataa ay dhaxlaan, in ilmihiisa ay dhaxlaan. walaalayaal bakhiilnimada waa wax xun, waana cudur, waana wax dhib badan. zamanka hore carabta way jiri jirtay, dad qaasaaba jirayba oo lagu yaqaanay bakhiilnimada ama boqolnimada, boqolaa oo carabi ahaa jireen. marka raggaas nin ka mid ah ayaa waxaa usoo martiyey saaxiibkiis ayaa usoo martiyey. markuu usoo martiyey wuxuu u wacay wiilkiis, wuxuu yihi wiilkeygiyo kaale maanta waxaa iisoo martiyey saaxiibkay aan jeclah oo qalbiga aan ka jeclah. waxaan rabaa inaad baxdid oo suuqa tagtid oo nuskiilo hiliba, bal fiiri bakhiilnimadii nin dhanoo loosoo martiyey meeshuu neef qali lahay. carabtu waaga hore neef bay qali jireen soomo. wuxuu yihi nuskiilo hiliba suuqa uga soo godo aada u fiican. wiilkii markuu wax yar maqnaay uu soo noqday, aabiya wuxuu ku dhahay asoo waxba hilib soo gadin ayuu soo noqday. aabiya wuxuu ku dhahay aaw hilibkaan kuu diray, soo ma ogid inay marti noo joogto nin saaxiibkii oo qaali igu ah, aaw hilibkii. wuxuu yihi aabbo waxaan aaday suuqa, waxaan tegay meesha hilibka lagu gado ama kawaanka markaa tegay ayaan waxaan ku dhahay waxaan u baahnahay nuskiilo hilib ah, waxaan u baahnahay nuskiilo hilib aada iyo aada u fiican. wuxuu igu yidhi waxaan ku hayaa hilib sida subag oo kale ah, hilib sida subag oo kale ah. qalbigeyga waxaan ka dhahay haddiiba arrinta saas tahay maa tigtid ma aragtay bakhaarka subag soo gadid. waxaan ibaanay dukaanka ama bakhaarka subagga ibaanay. ninkii subagga gadaya waxaan ku dhahay waxaan rabaa subag aada u fiican. wuxuu igu yidhi waxaan ku hayaa subag sida malabka oo kale ah, sixin ah. wuxuu yidhi haddiiba waxaa nafteeda aan ka dhahu yidhi haddiiba saas tahay maa tigtid meesha dukaanka malabka lagu iibiyo. waxaan tagu yidhi dukaanka malabka lagu iibiyo markaan tegey ayaa waxaan ku dhahay waxaan u baahnaa malab aada u wanaagsan. wuxuu igu yidhi waxaan ku hayaa malab aada u saafiya sida biyihi. mar alla marka halkaas maraysa waxaan ku dhahay haddiiba tahay biyo oo saafiya gurigeenna waa laga helaa. saa darteed waan soo noqday, waxaan soo gaday male. saa darteed biyo waa yaalaane martida hala sii biyo saafiya. odayga wuxuu yidhi wallaahi nin baad ku bannaan tahay niyo waad igu bannaan tahay. bal fiiri xataa aabihiis uga khatarsanaayo, laakiin waa ka xumoo yidhi hal baa hilmaamtay. waxaad hilmaamtay halka hilmaamta waxaa waaye maantoo dhan kobahaagaa iska soo dhammayso yidhi. saa marba dukaan u tegaysa, marka waan tag, mar dukaanka subagka tag, mar dukaanka malabka tag, maantoo dhan saa usoo wareegaysa ayaa waxaa iska dhammaysa kobihi. aad baan uga xumaa wiilkeygiyo. wuxuu yidhi aabaa nin ma aqli xumaa igu ogtoo yidhi maantoo dhan waxaan ku wareegaya waa kobihii ninka martida waa kobihii ninka martida maanta dhan ku wareegaya. bal fiiriyo walaale, ninkii waxaa laiskugu daray cunto la-aan iyo koba la-aan. siduu maalintoo dhan u fadhiyo oo wax u sugayo ayuu galabta futada inuu ka jajafto ka teg ma arka. bal ninkaas wiilkaas aabihiis ayuu bakhiilnimada ka bartay. odayga asaga nuskiilo hilib uu soo gaarayba inuu gaarsiiyo bakhiilnimadiisa, laakiin wiilkii wuxuu gaaray heer kobihiisa uu meel dhigto u qarsado. kobihii martida intuu nasanayo, ninka martida intuu nasanayo kobihiisa inuu gashto uu maantao dhan suuqa kusoo wareega oo intaas dukaan kusoo wareega waxna uma soo gadin, kobihiina waa kasoo dhameeyey martida. marka martida waxaa laiskugu daray cunto la-aan iyo koba la-aan. bakhiilnimada meelay gaarta fiiri walaale. marka waxaan qisada ka faa'iideynaa in bakhiilnimada laiska dhaxlo. heer wuxuu gaara qofka markuu bakhiil yahay
inay bakiilnimada ka badato ilmihiisan ay ka dhaxlaan heer ilmihiisa ay asaga kasii khatarsanaadaan ilmihii inay asagaba dhaafaan waalidku marka waalidkiiba maaragtay meel cidla looga tago maa sidaa darteed marka walaaliya waxaan ku waaninaya waalidiinta inaad isbartaan sakhinimada waxbixinta ilmaha waa practical fin hadalka waxay ka aaminsan yihiin ama ka raaci ogyihiin ficilka so waxaa rabaa ilmahaaga inaad barti sakhinimada masaajidada markaa geysi inaad lacag u dhiibto tiri aaba soo sadaqey ninkaa maskiinka sii ilmaha inaad barti qaraaba xariiriska marti guriga markay timaado waa ilmaha inay u shaqeeyaan marti soo sooraan soo dhaweeyaan oo tiraa gambar u dhig biyo cabitaan u gey shaa u kari magar masaakiinta markay xaafadda yimaad ama meel dad masaakiin markaa joogtid waa inaad ilmihii lacagta u dhiibtaa tiri aabahoo sii maskiinka oo ilmihii ku bartid oo tustid sifada maaragta waxbixinta iyo sakhinimada say kaaga bartaan laakiin ilmihii hadday arkaan waalidkii oo markaa wax qarinayo oo martida oo sooren oo wax bixineen oo markaas maaragtay dadka qaraabada xariirinen oo ehelkiisa xariirinen oo waalidkiisa xariirinen wixii way duubayan waa recording waa ilmaha way duubayan heer waxay gaarayaan adigaba ay ku dhaafaan oo bakiilnimada adigaba a ka yaabteen maa sida ninkaas cunugiisa oga yaabay ninkaas waxay nuskiilihii baa usoo gad oo fiican u keenayo martida waagi hor carabta neef geli ari waxbaa la isku qali jira laakiin wiilkii si uu dhahay kanaa kan ka fiican kanaa kan fiican dukaamada isku soo dhameeya asoo waxan u gadin intuusa bixin ka horna kabiisoo qarsado kabay martida u qaatay saas darteed marka walaal tawfiiq allah na waafajiyo qisada waxay ku saabsantaha qofka bakiilnimada waa sun waa wax xun naftaadana ka ilaali ilmahaagana ka ilaali naftaada ka ilaali ilmahaagana ka ilaali ilaahina hana waafajiyo aad baa walaalaha u salaamaya haddaad ka faa'iidaysteen qisadan insha allah walaaliya gaarsiiya walaalaha ayagana inay ka faa'iidaan waxaa laga yaabaa dad badan oo bakiiliin ah ama bukhalaa inay ka faa'iidaan oo bakiilnimadan iska dhaafaan ilmahoodana ay ka ilaaliyaan adigana ilaahay xasanaad iyo ajir oo badan oo kaa siiyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu